maareeyaha guud ee tikada magaalada Kismaayo mudane Axmed Xaaji Aadan Guuleed oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay barnaamijka dhoofka xoolaha nool ee ka socda tikada weyn ee magaalada Kismaayo. Axmed Xaaji Aadan Guuleed maareeyaha tikada magaalada Kismaayo ayaa sheegay in dhoofka xoolaha nool waqti hore uu soo bilowday balse ay hakad ku keeneen abaarihii ku dhuftay dalka iyo colaadaha sokeeye ee gobolada dalka qaar ka jira. hase yeeshee hadda ay dib u bilowdeen isla markaana ganacsatada dardar ay ku wadaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen suuqyada xoolaha ee dunida. maareeyaha ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay qorsheynayaan in tikada ay keenaan isla markaana ay halkan ka shaqo bilaabaan maraakiibta loogu talagalay in ay qaadaan xoolaha si uu u fududaado dhoofka xoolaha nool oo fursad muhiim ah u ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Jubbaland iyo gobolada kale ee dalka. haddii aan xoolaha idinkaga waramo xoolaha way dhoofaan markabka hadda baxay wuxuu ku socdaa dalka Cumaan wuxuuna qaaday lo dibi lama dhoofiyo xoolaha dhediga waxa la dhoofiyaa waa xoolaha labka marka waxaan rabnay inaan 2 kun saarno laakiin markabkan ugu yaraaday wuxuu qaaday 1200 iyo 20 abu marka inkastoo xoogaa baryahan ay xooluhu kala go'een xagga abaaraha iyo xagga colaadaha hadda ka socda intaas aad kala go' ku noqotay haddana insha Allah dib u bilowdo dhaqaalaha war walba oo tikada ay mashquul noqoto dadku waxa soo galaya dhaqaale tusaale haddii hadda uu hal markab imaado markabkaas ama lo ha qaado hadda tusaale kan loodo kale xoolaheedii iyo reebadihii iyo uu galaya magaalada waxa ka soo galaysa xogaaga canshuurta dawladda iyo xogaaga wiishka iyo waxaas mooyee laakiin badi waxay gashay xoolihii ninka suuqa joogay ninkii soo gadahayay ninkii qabanhayay waxaas oo dhan bay dib ugu noqonay dadkaas noloshooda ayay ku maareynayaan haddii marka badeeca yimaadona magaalada oo dhan all institution oo dawladda oo dhan buu ka shaqaysiinaya gaadiidkii baa ka shaqaynaya kii petrolka shaqaynaya shidaalka baabuurka shidaal u baahan yahay islaanti qudaartii laga gadanayaa waa meel walba way saameynaysaa hadduu markab imaado haddii meeshu kala go' timaadana waxay saameynaysaa ummadii way saameynaysaa labada dhinac marna horumarku uu saameynayaa markuu markab soo xirmo marna haddii la waayana indhaha isku qabanaysaa khaasatan soo Kismaayo waxa dadku ku nool yahay markii laga soo reebo dadka factories-ku hay'adaha u shaqeynaya wax kale waa muruqmaal qolo ka shaqeysto dhismaha guryaha qolo tikada u soo xamaal tagta iyo qolo beeraha qodota intaas waa horta income-ka dadku ku nool yihiin marka laga soo tago shaqaalaha dawladda ama shaqaalaha kale hay'adaha laakiin body most of them waxa way dadku waxay ku nool yihiin saddexdaas meeshan waa meesha ugu muhiimsan mar hore loo diyaariyay ma soo dhaweyn oo diyaarinay hadda waxa way markabkan hadda lagu rarayo markabka xoolaha ma waxaan rabnaa inaan joojino oo aan u bedelno maraakiib xoolaha oo markuu soo xirto markabka caadi u galahay horeyna nooga tagay sida hadda rafaadka ugu jiro in laga baxo hadda laakiin waa bilow fiican meel fiican baan la marayaa insha Allah taala maraakiibta kale ma keeni doono hadda xoolaha dhoofay dadku waxay ku midaysan yihiin dalada xoolaha Jubbaland waxay ka mid yihiin saddexda gobol ee Jubbaland waa way ka midaysan xoolaheeda xoolaha suuqyada way ka furan yihiin meelaha laga soo galo Kismaayo ka furan yahay Afmudo ka furan yahay Dooble ka furan yahay ilaa areadaas oo dhan waa laga soo gadaa xataa dadka Gaarisa iyo Soonaha degan suuqyada way u soo iibgeeyaan wax kaliya ku eg maaha laakiin waa dad isku tagay oo iskaashata oo la magac baxay dalada dhoofinta xoolaha dadna le community-gaas kadibna ayagu ay maamul ay leeyihiin saasay ku dhoofsadaan kuna faa'iidaan kuna shaqaystaan. maareeyaha guud ee tikada magaalada Kismaayo mudane Axmed Xaaji Aadan Guuleed ayaa gabagabadii ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay wadajir uga shaqeeyaan sidii isku tashi iyo isku filnaansho loo sameyn lahaa isla markaana wax soo saarka dalka looga shaqeyn lahaa loona xoojin lahaa. wallahi bulshada Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelin lahaa in biyo sacbadaada looga dhargaa in qof walba isku tashado aan dibadda wax laga sugin aan la fiirin loo kaco in wax la tabacdo wax la beerto la dhaqbo wax la barto aqoontii la imaado ganacsatada iyo dadka xoolaha Ilaahay siina waxa la dadku waxa u keenan
warshadaha yaryar small scale project tusaale hadda waxa kuugu filan findicilka aan ku fadhicilnayo waxa laga keenayaa China dhamaan kismaayo ka sameyn karna cali groobkana dhibay waa laga sameyn karaa warshad yar inta la keeno cali groobkaas astakiinka laga sameyn karaa waxa warshadan wax yar ma joogto dadka macnaha waxa la fiiriyaa warshad markaa keenayso materialska xagga laga helaa hadii laga helo materialska 70% Soomaali gudaheeda warshad waa keensan kartaa laakiin hadii 70% aad dalbanayso dibadda warshadaas oo ka camiyalanaysa hada fiiri geedaha soo kala haysanaa annaga na dhibay istakiinkan waxaan loo keenaa barnaamij in la fikiro u baahan tahay oo ilaahay aqliga wuxuu noo siinaa ku fikirno marka fikrada waa haynaa hana loo imaado hana la weydiiyo hana laga qaato waa ku soo dhaweynayna insha Allah Sabriya Soomaali warbaahinta Jubbaland magaalada Kismaayo